أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. barnaamijkeena ayaa inoo sii socon doona marti badan ayaa inoo joogta markan waxaan jeclahay inaan u yeero gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka UK dabcan Salaad Ismaan Roble dhammaan marti sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladda tan guddiga qabanqaabada fanaaniinta warfaafinta iyo dhammaan inta kale oo ka soo qayb gashaba dhammaantiin habeen wanaagsan. waxaa caawiye sharaf inoo ah inaan halkan isugu nimaano annagoo xusayna maalintii gobonnimada iyo midnimada Soomaaliyeed. taariikhda ayada ahi waxa weeyaan taariikh fac weyn yeelatay oo iminka muddo aad u ballaaran aad u dheer ka soo wareegatay waqtiga asaga ah. laakiin waxa loo xusayaa waxa weeye in halgankaasi markasta uu noqdo mid nool oo la xasuusto oo dadkii Soomaaliyeed oo halgankaas ballaaran wax ku soo gaaray ay ogaadaan in dad ka dambeeyo oo wixii u soo halgameen ay weli nooshahay oo maantay weliba sanadkan uu yahay ama waqtigan dambe uu noo yahay ayadoo dib loo soo abaabulay burburkii iyo dhaawicii gaaray gobonnimadii iyo xorriyaddii Soomaaliya ay 60kii qaadatay in hadda Soomaaliya ay u socoto Soomaali dawladnimadeedii iyo sharafkeedii soo ceshanaysa. waxaa mudan marka dib inaan ugu noqdo halganka Soomaaliya ee gobonnimada wuxuu soo maray taariikh dheer taariikhdaas oo dad badan oo sharaf leh ay ku soo mareen. waxaa xusid mudan 1943 in dhalinyaro Soomaaliyeed oo 13 isku yimaadeen oo markaasna ay ku fakareen sidii isticmaalka dalka looga saari lahaa. fikirka asaga ahi wuxuu noqday mid miro dhala oo abaabulkaas iyo xuskaasi ay maxaan dhihi lahaa abaabulka iyo ay bilaabeen halganka asaga ahi 4 sano kadib inuu noqdo mid miro dhala ee u bedelma meeshii awal iska ahayd kalaab ama meel dhalinyaradu isku timaado oo SYC ayaa la oran jiray kalaabka dhalinyarada Soomaaliyeed. kalaabkaasoo dhalinyaradu isugu imaanaysay inay sidii loo sheegay weliba isticmaalka markaa jooga aan ogoleyn meel dhalinyaradu isugu timaado wax ku akhrisato raadiyaasha ku dhegeysato ay isku ku sheekaystaan. hase yeeshee dhab ahaan waxay ahayd meesha laga soo unkamiyey halganka gobonnimadoonka Soomaaliyeed. 4 sano ka bacdi 1947 ayaa markaas kalaabkii wuxuu bedelmay xisbi dhaqdhaqaaq gobonnimadoona oo SYL loo bixiyey. halgankaasi markaa wuxuu noqday mid Soomaaliya meel ay joogtaba ee saameeyey ama dhulka Soomaalidu ay degan tahay oo dhan laga soo bilaabo dhulka Soomaali galbeed loo yaqiinay dhulka NFD loo yaqaanay dhulka xeebtii Soomaaliyeed ee Faransiisku haystay Djibouti dhulka Somaliland loo yaqiinay oo Ingiriisku haystay iyo dhulkii Soomaali Italian loo yaqiinay oo Talyaanigu haystay. dhammaan meel kasta qofka Soomaaliya jooga halgankaas wuu gaaray xarakadaasna way ka socotay oo xisbiga SYL markaas uu hogaaminayay. kadib sanado ka bacdi waxaa bilowday axsaabtii kale oo gobolada waqooyi ka bilaabatay oo iyakuna dhinaca Ingiriiska ku qasbayay dawladda Ingiriiska ku riixayay in halganka asaga ah ay noqdo asaguna mid la tallaabo qaada halganka koonfurta looga jiray oo 60kii xorriyadiisa la gaarayo. 1950kii ayaa halgankaasi wuxuu gaaray adduunka dibadda 49kii wuxuu u baxay banaanka u baxay adduunka kale ayuu dhex tegay jamacadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa la geeyey
taas oo dagaal badan iyo dood badan ka bacdi keentay in Soomaalida loo garto 10 sano ka bacdi inay xorriyad qaadato 10kaas sanana loo diyaariyo qaabkii ay dawladnimadooda ay ku maamulan lahaayeen marka ay xoroobaan ragga halkaas hawshaas waday culeyskeeda ama aasaaska koowaad waxa xusid mudan ninkii hormuudka u ahaa kalaabka 13ka waxa la oran jiray Yaasiin Cusmaan oo asagu ninka xiriirka dhisay 13 leegada ka bacdina waxa markii xisbiga laga dhigana waxa la gudoomiye looga dhigay nin la yiraahdo Cabdulqaadir Saqaawudiin waxa ku xigay nin la yiraahdo Xaaji Maxamed Xuseen Allah wada naxariiso raggaas waa rag wada tagay oo halganka saldhig u ahaa Yaasiin oo ahaa ninka unuga xiriirka meel kasta oo xisbigaas abaabulka ama kalaabka ama markii dambe xisbigu noqday madax u ahaa isla markii xisbigii loo bedelay xarakadii loo bedelay xisbiga mudiirka bacdiba wuu dhintay waxa bedelay markaas Cabdullaahi Ciise Maxamuud ayaa xogiyihii guud laga dhigay ilaa iyo xorriyadiina noqday ninka leegada saldhig u ahaa oo Soomaalidu ku dhaadanaysay halgan badan iyo dagaalo badan la soo galay oo xamar ka dhacday Kismaayo ka dhacday Doolobe ka dhacday gobollo badan oo Soomaaliya ayaa dagaal badan ka dhacay oo dad Soomaali ku dhinteen waxyaalaha xusida mudan oo mucjisooyinka leegada marka laga hadlayo dadkaas walaalnimada iyo dareenka iyo dadnimada ay qabeen waxa kamid ahaa markii New York ama Jaamacadda Qurumaha Cabdullaahi Ciise loo dirayay Soomaalidu ra'yi waxay qabtay ninkaas qof kasta oo baxay waa la talaalaya haddii Cabdullaahi talaalku markaas dad badan ayaa ku jiranay waxa laga baqay marka Cabdullaahi talaalka laftiisa in loo gambado in la sumeeyo marka waxa la yiraahdaa haddii ninkii tagi lahaa la sumeeyo oo dhinto xarakada yaa waday nin Soomaaliyeed soo baxay oo muura la yiraahdo oo Cabdullaahi isku ekaayeen ayiri aniga hal talaal hadii la dhiban anigu waa dhinto si Cabdullaahi oo hawshaas u galo يعني runtii waxa weeye qiimo weyn qof nolosh u hibeeyay asagoo nool hadii dhibba imaanayna asagoo gaaran si ninkaasi u badbaado hawshii ayada ahayd u aado waxyaalaha kale oo dhacay waqtiga xorriyada intii halganka lagu jiro waxa kamid ah yani saameynta dadka Soomaalida si halganka asaga u saameeyay waxa tusaale oo loo soo qaadan kara iyadana leegada waxa jiray nimankan madaxda ma rag la yiraahdo waagi hore isbitooral oran jiray ama kormeerayaal kormeerayaashaas waxay tagayeen in alla inta aan dhulkan ka hadlay oo Soomaalidu degan tahay waqti kamid ah dagaalkii laba adduunka ayaa markaas dhamaaday oo meel kasta dawladnimadii oo waxa isbedelay wadamadii adduunka dagaaladii isku bedeleen awgeed ayaa muddo dheer waxa dalka Soomaaliya dhulkeeda waxa kala gogo oo dhacay burcad baa ka dhalatay ka bacdi waxa dhacay nimankii leegada nin la oran jiray Maalinguur oo kamid ah dadkii isbitoorayaasha ama dadka kormeerayaasha wareegay ayaa dhulka Soomaali galbeed oo lacag ka soo arooriyay lacagtii markuu soo arooriyay oo lacagtii sanduuq ku soo ritay oo baawur soo la soo raacay shufta baawurkii meel dhax u gashay dadkii dhammaan la soo dejiyay waa la wada baartay wax istaan laga qaatay ninkan baawurka soo degi waay markay walwal waxa hayay lacagtii leegada oo soo qaaday bur shuftadan inay ka qaadato ayuu aad uga baqay waxa dhacay marka waxa lagu qasbay marka dambe inuu sanduuqi furo sanduuqi markuu furay waxa dhaxtaala lacagtii iyo calanka leegada oo dul saaran nimanka shuftada ah markay lacagtii calanka leegada arkeen yiraahdaan tanta aan soconay maan hal daboolo hatta shuftadii duurka ku jirtay ayaa yaani Soomaalinimada dareenka waxa la ka dhaxeeya dadka ayaa ka xishoodeen inay hunguriyeen bay ka xishoodeen taa macnaheedu waxa weeye qof kasta Soomaaliya nooc kasta uu yahay ayuu waxa galay dareenka wadaniyada iyo halganka lagu jiray gobonimo doonka ma la soo koobi karo halgankaas isaga ah 1959 ayaa waxa la soo gaaray markaas in laga wada hadlo maadaama labadii gobol ay xoroobayaan in laga wada hadlo sidii loo midoobi lahaa sidii xorriyada iyada ah hal mar loo wada qaadan lahaa nimankii muxuu ahaa waqooyi markaas xarakada hogaaminayay dawladda Ingiriiska waxay ku qanciyeen in xorriyada la siiyo dhulka Soomaaliyada Ingiriisku haystay oo marka Hargeysa saldhig u ahayd taa macnaheedu waxa weeye
waxay la qorsheeyey in lixdanka bisha July 30keeda maadaama ingiriisku talyaanigu og yahay koonfurta oo kooda luuliya la qaadanayo ka hor xorriyadda in la siiyo si ay ugu soo biiraan maalinta xorriyadda ee Soomaalida la siinayo talyaaniga halkaas ayaa midnimadii Soomaaliyeed ay ku abuurmatay iyo labadii qaybood oo markaas muxuu ahaa xorriyadda helay Soomaalida marka baarlamaankii dhashay oo labada qaybood ka dhaxeeyay ee dawladdii dhalatay barnaamijkooda wuxuu ku saleysnaa dhulkii maqnaa oo kale saddexdii kale in la raadiyo waxaan taariikhda marka lagu hayaa saddexda meelood waxa hogaaminayay saddex nin oo waqtigaas dadkii hogaaminaya xarakooyinkaas ka mid ahaa NFD waxa ka yimid nin la yiraahdo Cabdirashiid Qalaf oo xamar loogu yeeray Soomaali galbeed waxa ka yimid nin la yiraahdo Maqtal Daahir oo hogaaminayay xarakadii 64 dagaalkii aan galnay beeska u ahayd ninkii hogaaminayay Maqtal Daahir oo oran jiray Djibouti waxa ka yimid Maxamuud Xarbin in la yiraahdo oo asagu isla sanadkii gudihiis dabaadigiisiba dhintay injin diyaarad ku dhintay saddexdaas iyo rag la socday waxa loogu yeeray waxay ahayd in la dhameystiro halgankii xorriyadda intaas marka aan ku soo koobo caaway marka waxaan xuseynaa waxa waaye waa taariikhdaas ayada ah oo inta anigu aan ka sheegay aad u kooban tahay markii laga hadlo baaxadda iyo awoodda iyo qiimka ay ku fadhisay halgankaas uu ku fadhiyay aan marka dhamaanteen aan hambalyeeyno horta aan macni aragti naxariis leh aan ku eegno intii u halgantay Ilaahay inuu naxariisto annakana waajib waxaan ugu ah inaan ilaalino oo mar kasta aan xusno dadkaas halganka ku dhintay oo dhiigoodii maanta anagu aan ku noolnahay oo xorriyadda aan ku haysano Soomaalidu marka maantay waqtigan asaga ah oo adag oo aanu galnay oo aan hadda ka soo kabanayno dawlad la'aantii ka soo kabanayno qof kasto Soomaaliya waxa waajib ku ah inuu kaalintiisa ka qaato si dawladnimadaas loo adkeyn lahaa oo ay noo suurtagalayd sharafkii iyo maamuuska adduunka aan ku lahayn inaan ku soo noqono aad iyo aad u mahadsantihiin habeen wanaagsan aad iyo aad u mahadsan yahay gudoomiyihii hore ee dhalinyaradii qaranka Soomaaliya dabcan qarankeenu mar ayuu dhisnaa qolada saxaafadda waxaan ka codsanaynaa inay wax soo dirkaan maadaama dad badan ay marayaan waxayna la jooga fanaaniin badan sidoo kale waxayna la jooga dad badan oo aqoon-yahano ah gabdhaheena Soomaaliyeed ee sharafta badan ee calankeena jecelna dabcan sawirada calanka lagu galaya hadda jeceshihiin Maxamed Yar wuxuu leeyahay sawirkii hadda halkan aad ku soo birta gareynaya idin haya waa ka socon doona haddii rabbi karaam noqdo barnaamijkeena ayaa inoo sii socon doona hon cable oo ayadu barnaamijka caawa ahayd inay live ku tabiso waxa ay leeyihiin maadaama delay yar oo dhacay waxaan idinka raali gelinayaa inaan hadda hawada ku jirin laakiin ay isku dayaan inay hawada galaan haddii kalena ay barnaamijyada iyo wararka ku soo qaadan doonaan sidoo kale TV kale ayaa ayagana inala jooga waxaan markaan jeclahay inaan u yeero oday Soomaaliyeed cuqaalsha Soomaaliyeed ee waddanka Ingiriiska ka mid ah in badanna gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan garab istaaga mar walba Yaasiin Bulsho waxaan leeyahay ku soo dhawow Soomaaliya ha noolaato waxaan rajaynaynaa insha Allah waxa weyn ma aan insha Allah waxaan maanta aan dhihi lahaaba kulay salaad baa idin dhameeyay taariikh dib loogu naqdo xaq maaha kulay maanta maalin aan mudan tahay way xaqiiqda inaan xusno waxa dareemaysaan 26 June iyo 27 June inaan 28 iyo 29 aan rabno gobolada maqnaa inaan helno sida maarta muxuu ahaa Soomaali galbeed iyo maarta NFD si aan maarta wadajir isku nimaadno haddana waxay u sii muuqataa xoogaa inaan si kala durkeena marka hadda dawlad noo timid kumeel gaar xoogaa calamka goormeelka laga baxay calamkana aqoonsaday bacdama adduunkina aqoonsaday waxa laga maarmaan ah inaan anagana taageerno wax way tarin haddii doonto laakiin in la taageero oo aan laga hor iman waxaan rajaynayaa bidnillahi alkariim Soomaalida waa dareemaysaan gobolada waqooyi 26 June ay qaateen sida taariikhda runta xaqiiqda ay tahay yani waa dad waa dhibaato gaartay yani waa caroodeen waxbay samaysday 10 kama la baxeen laakiin habeen ka horeeyay TV-gooda 26 June saaran muddo dheer ma u saarayn
macnaha taariikhda waa ka nasiib ka nasaar meesha ka dhacda gobolada waqooyi bay ahayd wax la iloobi karaana maaha ayagaan xaq wala marka waxaan leeyahay soomaalidu ha israacdo ha midowdo tv-gan maarata hon cable oo caawa arrintan hogaaminaya tv-yada kale iyo barnaamijkan dhallinyaradii soo abaabushay ee macna u hurtay sharaftooda iyo heybadooda u hurtay waxaan rajaynayaa soomaalinimo in lagu dhinto inaan soomaalinimo inaan qabiil loo kala qaybsamin qabiil wax kuu tari maayo caawa haddaa xanuunsanta waxba kuu tarin maayo haddaa rabta wax kuu qabato wax kuu qaban maayo laakiin waxaa wax kuu qabanaya qarannimada soomaaliyeed carruurtan wax ha la baro soomaalinimada ha la baro wax walbo aan kala namusas aan kala galnaba iyo meel kastoo aan kala galnaba calan soomaalinimana lagu dilaa marka soomaaliya la iloobin soomaalina ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jeclahay markaan inaan u yeero cabdi aakhiro calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad marka labaad runtii aniga caawa waxaan ka mid ahaa dadkii laga casuumay golaha midnimada soomaaliyeed oo walaalo badanna ay joogaan marka waxaan jeclaan lahaa inaan press release-kii anagu talagalnay asagole inaan halkan ka gudbino haddii alla idmo arrimaha gaar ahaan dee wixii soomaaliya xorniyadeeda iyo maaragtay wixii caawa xafladan ku saabsana waan ka hadalnay dibna waan uga hadli doonaa laakiin current situationka jira in laga hadlo waa very important therefore asagol ahaan marka press statementkan ugu talagalnay ayaan haddii alla idmo ka jeedin doonaa halkan inkastoo saaxiibadii ila socdan ay qaarkood fadhiyaan waxaan ugu horreyn soo dhaweynaynaa dib u heshiisiinta iyo midnimada ummadda soomaaliyeed marka golaha midnimada ayuu xasuusinaya magaca marka raalli ahaada waxaan soo dhaweynaynaa ugu horreyn dhammaan midnimada iyo maaragtay dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed which is waxaan annagu gol ahaan u taagannahay goluhu wuxuu taageerayaa oo uu soo dhaweynayaa sidoo kaleeto go-aanka imaanshaha sheekh xasan daahir aweys ee ah inuu yimaado oo ka soo tago kooxda al-shabaab kuna yimaado dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada lamay habaabiyey ee al-shabaab inay hubka dhigaan dadka soomaaliyeedna ay u soo jeestaan ee wax la qabsadaan goluhu sidoo kaleeto golaha midnimada soomaaliyeed wuxuu kaloo ugu baaqayaa dowladda soomaaliya in ay haddii alla idmo si wanaagsan u soo dhaweeyaan shiiqa iyo culummada la socota iyo dhammaan xubnaha cusub ee ka soo gelaya al-shabaab isla markaana ay fidiyaan gogashii midnimada wada hadalka ummadda soomaaliyeed doorka midnimadana ee soomaaliyana ay cayaaraan isla markaana ay qaadaan xayiraadaha ay ku hayaan dadka shakhsiyaadka ah ee muhiimka u ah dib u heshiisiinta iyo midnimada ummadda soomaaliyeed goluhu waxa uu u mahad celinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed siday uga gaar ahaan dadka isku xilsaaray midnimada iyo mudnaanta soomaaliyeed iyo dib u heshiisiinta waxa uuna si gaara ugu mahad celinayaa sidoo kaleeto dowladaha internationalka ah gaar ahaan kuwa islaamka oo door ka qaatay arrintaas gaar ahaan dowladda qatar oo runtii aad ugu howlaneed arrintaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya caawa waxaan iskugu nimid soomaalinimo inaan hambalyo u diro ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto curashadii 1 luulyo 1960 maalintii gumaysaha aan ka xorownay aan walaalownay gobollada kale sida Somaliland, Soomaaliya, Jabuuti, Soomaali waa Soomaali, Soomaali ma kala go'do il iyo diirkeed weeye midnimo wax lagu waayay talantee laguma helayo walaalayaalow waxaan idin leeyahay oo haddana idin leeyahay midnimo wax lagu waayay teelteel iyo qabiil laguma helayo qabiil wuxuuna gaarsiiyey waad ogtihiin dowladdeena maanta Soomaaliya meeshay marayso meel wanaagsan weeye ummadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay garato ciidda iyo calanka yaa iskale ummadda Soomaaliyeed baa iskale Soomaalida ilaa haddeer kacanimadii iyo waddaninimadii qalbiga way ka jecel yihiin laakiin afka maya
sidaas awgeed waxaa idin leeyahay soomaaliyey marka wadaninimada laga hadlayo ummadda waa inay qiiro leedahay qof walba calan waa inuu wataa waa inay baraarujin aad u wanaagsan ee meeshaas ka dhacdo ilaahay ka baqa sheekada yareeya midnimada xoojiya hore ha loo socdo aad baa u mahadsantihiin soomaaliya ha noolaato السلام عليكم دمان أمد الصوماليات عاوي سوق تمد حفلة حرية مالتي قادتي أمد الصوماليات هاي كود اللوليو وحن لي هاي دمانتين آدي أيضا مهسنتهين حفلة كود اللوليو وحفلة حقينا كأه مد أن لسوقه بكرين ومالتي أمد الصوماليات كفرت الصوماليات أي حرودي ومالتي أي قبلة وقوي قبلة كفرات أي مدوبين أي على كبلوجة ay wada saarteen marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed hambalyo iyo bogaadin waqtigoo lagu yar awgeed waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya waxaan kula halkan ka salaameynaa oo iloobay adinkoo raaliya madaxweynaheena sharafta badan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Ministerkeena sharafta badan Saacid gudoomiyaha baarlamaanka ee sharafta badan Jawaari waxaan leenahay dhamaantiin mas'uuliyiinta dalka Soomaaliya adinka ayaa leedin rabaa inaad dalka si sharaf leh oo wanaag leh aad ugu hortiin naftiini sidii waagi birsamaadkii in Soomaaliya ay sideedii dib ugu soo laabato annaguna garabkiina ayaan taaganahay haddaanu nahay haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK haweenku waxay had iyo jeer ay garab taagan yihiin dawladooda sharafta leh dawladeena ayaan halka ka taageersanahay soo dhawaada dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee caawa halkaan isugu timid waad mahadsantihiin waxaan markaan jecelahay inaan u yeero dhalinyarada soo qaabisay mid ka mid ah Cabdulcasiis Ashkir kusoo dhawow bismillaah mudanayaal iyo marwooy waa salaamantihiin dhammaan dadka waqtigooda u soo goray inay ka qayb galaan xafladan sharafta leh especially wariyaashii Soomaaliyeed cawada uma kala harin goobtaan taas waxayna tusaysaa inaan friends badan media ku leenahay waxaan hambalyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed shanta gees ay joogaan oo Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo waxaan hambalyo sidoo kale u dirayaa xornimadii 26 ka soo wareegatay waqooyiga Soomaaliyeed oo calanka noo keenay oo haybad iyo maamuus cawadu waa habeenkii la isku daray ayagana waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay isku duubni wada socod Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa dhibaato aad iyo aad u adag dadkiina halkiinaan fadhiya ayaa looga baahan yahay dhibaatadaas inaad ka saartaan dalka waxaad uga saari kartaan waa soo dhawaata nabadii iftiin ay leedahay iftiinkaas waxaa curin kara shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan isku duubma haddaysan isku duubnin al-shabaab baa guuleysanaysa waddankana waa la qaaday haddii la isku duubnase al-shabaab iyo xulufadeedu waa baaba'aya waxaa la yidhi African Unionku waxay dhahaan no al-shabaab no money haddee dadku haddii aysan ayagu ayahooda aysan ka tashano qof uga talinaya male ummadda Soomaaliyeed dhibaato way ka soo daashay dadku waxaad moodaa haddeetaan inay isdaadsadeen ha isdaadanina xilligii la inii baahnaa waaye gubaabo iyo nabad baan kaga tagaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمرك يجوه رئيس رنتي عن كهاد له حفلة لغمة موسى دبالدقة مع أنت حر ماذا لقعته أنت بدل محلها صومالي هنولاتو يهجرتو لكن لغمة دارو النبتها كجرتو مركو حن لي هاي هلغو دارو النبتها كجرت هل لو دعيو annaga qurba joogteena waxaan maqalnaa markasto in Soomaaliya dagaal oo ka dhaco musiibo ay ka dhacdo balaayo ay ka dhacdo laakiin ma ducayno marka insha Allah aan ducayno waana mahadsantii assalaamu calaykum waraxmatullaah
loo wada loo baxay calankaynu laayo nuurkii la soo baxo loo baxay calankaynu laayo nuurkii la soo noqoye la'aantiin ummad iyo qarannimo ma jirteen gabdhaha Soomaaliyeed waxaan jeclahay markan maadaama calankii aan saarnay inaan u yeero oday Soomaaliyeed oo dabcan goobjoog u ahaa xilligii calanka buluuga ay xidigta la saaray Khaliif Ashkir Diini kana mid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya waxaan marinayaa oo caawa suugaan aan ka dhigahayaa heestii gabdhaha aan wakiilka uga ahaa oo ay ragga kula hadlahayeen ragow taladiis baadow haddaad hayb iyo tolnimo ku tuurteen dawladdii asaantaan soo dhisnaba tub iyo ceeljoogsi iyo tusmada ka habaabisaan asaad ka tagteen ilmihii markay tabayeen waxqabad tubaakiya qaad taqsiin tidhaahdeen waa rabnaa miyaad noo talin kartaa aday kaa taal dhulkee intaa markaan ka tago aan caawa u laabto luuliyo maalintii farxadda badnayd maalintii aan taagnaa maalintii nacawdu qaboobayd maalintii dadku iswada salaamahayey maalintii wejigayagu nuurka lahaa maalintii labadii istaqaanaa hab isi siinaysay labadaan isaqoonna gacanta isku haadinaysay maalintaan u malaynaya haddaan rabbi jannada ka baryo inuu iga aqbali lahaa saaxiibbadayoo tiro badan baa iga dambeeya oo iyagaan u daynhayaa hadalka intiisa kaleeto laakiin anugu aan ka soo qaado wax yar aan ka soo qaato waxaan ka soo qaadanayaa saddex munaasibood baan halkaan u qaybinayaa maalintii ay dhalatay oo aan u farxaynay 22 sano oo murugo ah oo aan u barooranayno iyo maanta oo kow aan bilaabayno ididiilo hor leh ee noo muuqato waxaan la warramahayaa raggii wax ka yidhi arrintaas maantii ay meeshaa joogtay timacadde oo wada og tihiin oo saaxirkii kala guurine sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegee kana siib kana saar us yidhi waxaan timacadde u sheegahayaa timacaddow noo soo ducee qabriga nooga soo ducee calankii aad ogayd oo baluugga ahaa 15 nooc weeye caawa qaar baa mudmadow qaar baa diilime leh waxaan ku farxanaa ninkii meel yar ka siiya calanka buluugga leh kii kale waaba inkiray waxba kama siininba halkaas oo caawa mar hayaada noo soo ducee allow yaa dalkeennii tago yaa midnima doona allow yaa dadkiisana heshiis durugsan gaarsiiya dagaaladay ku riiqdeen allow nabad ku soo dayra allow yaa walaalahaan isdilay daynu kala qada dambiyaday qabyaaladii gashiyo yadiyada dhiba darmantan jeclayay allow yaa xorriyo daya
darmaantaan jeclayay allow ya xorriyo daya damiir lawayaashiyo allow ya jaaliga duuga allow ya darogada sunta qaadka dabargoya doodaga maqan iyo allow ya danjire radsha wadanigan dabayshada allow ya degmada geeya allow ya doqowdii horiyo duubcadda u yeera soomaalidan dayowdiyo shacbigan dadku wada qatay ee dafaha adduunkiyo ku lumay koonfur dacalkeeda dacadiyo runtabaya allow daha uga qada allow ya dariiqada saxda diinta ugu sheega nfd dusheediyo allow ya dalka xoreeya danoodiyo wardheeriyo jigjiga diiradda u sara markaya daruuraha cirkiyo roobka ugu deeqa allow ya dukamada camiro dalaga no beera dalxiiskana allow ya u fura dunida guudkeeda dollarka iyo shilinkiyo allow ya dakhliga yeesha dayartiyo caruuraha allow ya dugsiga geeya muqdishona damashaad ka dhiga dagaalka nafoobay daqarada ku dhacaya allow nabarka daweeya waxaan doonayo yaalow qaranka noo daya allow ya waxaan doonayo qaranka noo daya dhabarka juunay ha marin dhabii maqaluuliyoy dhallaankii waxaanu nahay aabbayaashood ku soo dhacsheen dhiigoodu u daadan jiray xorriyad inay dhashaan calanka dhidibada u muday ka dheelmay gumaystihii dalkeenna ku dheeli jiray waqooyiga dhinac walbaba dhawaaqu markuu ka yimid dheemantii markay heleen dhibaatadii soo martay iyo dhaxanta ma dareensanayn dhambaal iyagoo siday muqdisho kala soo dhaceen ay leegadii bartanka u dhigeen markay iyagoo farxaddu u dhantay caleema isdhaafsadeen markay odayadii dhinteen dhammaaday muwaadinkii dhallaankii leegada sidii dhaylada la cune maxaa dabadeed ka dhacay waxaan hadda taagannahay hore guud ahaan qaybaha bulshada soomaalida ee caawa halkan goobjooga ka ah salaan kalgacaltooyo kadib waxaan dhammaantiin idin leeyahay agtaydaad ka hadlaysaan markaan hadlayana in la hadla ma jecli waa mahadsantihin yaa waxaan ku celinayaa intii aan lahaa waxaan ka xanuunsanayaa dhiigga dadka soomaali maadaama walaashaya soomaaliyeed ay lahayd gabayadii calaacalka iyo xanuunka badnaa ee ruux dareenkiisu ka sarreeyo uu adeega qabyaaladda ama qabiilka jecelahay horta inaad ku baraarugtaan tage maalmihii qofka loo tirin jiray midda kale ma aha dadka soomaaliyeed inay isku qanciyaan ama aad ku qanacdaan nin ka tirsan qoyskiinu inuu madaxweyne noqdo ra-iisul wasaare noqdo oo aad u sacbatuntaan maxaad ku leedahay diriirta iyo dhiigga iyo colaadaha iyo shidada iyo burburka ballaaran ee dadka soomaaliyeed ku dhacay ee laga sheekeynaya caawa waxaan aniga oo magaca ummadda soomaalida ee leh haweenka ragga caruurta iyo inta kale ee halkan goobjooga ka ah baaq nabadeed u diraya walaalaha culoobay ama ku dagaalamaya deegaanka ama magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya waxaan leeyahay walaalayaal waxaad isku dilaysaan waxaan jecelahay hadalka inaad ila qaadaan caawa waxay isku dilayaan waxaan marqaati u ahay inaan guul lagu gaaraynin waxaad garanaysaan dagaaladii ka dhacay 19 magaalada Muqdisho 29 ee dad badan oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen waxaa dhici karta inaan ka xishoon waayo caawa hadalkii ay walaashay lahayd anna inaan ku celiyo qoyska la ii tiriyo iyo qoys kale oo aan walaalanahay waxaan isku dilnay waxaanay dadka Soomaaliyeed aanan ka lahayn maanta waxay isku dilayaan labada qoys ee wada dhalatay ee joogta magaaladaasi waxayan dadka Soomaaliyeed ka lahayn baaqaygu waa nabad dhammaantiin waan salaamayaa Soomaalida caawa ka soo qayb gashay shirkan amiin kuuda luuliyo maalin qaali ah gaar ahaan waxaan salaamayaa fanaanada hibaaq iyo fanaanka cabdow iyo abwaanada diyaana iyo dadka badan oo qaaliga ka soo qayb galay maanta kuuda Juulaay intaa kadib runtii waa maalin qiimo badan oo ku weyn dadka Soomaalida ah waxaan loo baahan yahay inay
ay u dabaaldegaan xilli kastoo ay xusnaadaan in macnaha ay ku timid kooda luuliyo dhig badan xurmada dhib baa loo soo maray maanta oo xornahay Soomaali ay mid tahay waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo midnimada in laga shaqeeyo Soomaalinimada in laga shaqeeyo wadajirka waxaan ognahay Soomaali dhib badan bay soo martay 22 sano waqti ku filan dhib ku filan ayaa soo mareen haddii waxa ka dambeeyay waxaa wanaagsan inay wadajirka iyo midnimada iyo Soomaalinimada ay ku dadaalaan aad baan idin salaamayaa Soomaali ha noolaato Soomaali ha midoodo waan salaamayaa aad galabta galab weeye gala haban gada la marin Soomaaliyay galabta galab weeye gala haban gada la marin calanka guudkeena suurahan gulano hantiyay gumeysti baxayo gayhigeena laga beneeday calanka galabtii la saaro la wada gurmaaday ogayga Soomaaliyeed oo gunima ka baxay goyiga Soomaaliyeed oo gunima ka baxay cadawkinaga guurayo hoogeeduhuba farxeen cadawkinaga guurayo hoogeeduhuba farxeen ogada ka cayaaryana taagees walbaba la toomay ogeesiyaaliya gabdha handaalin baa u kacay galabta galab weeye gala haban gada la marin rag badhigooda tahajo ka dhidiyeen shanta xidigoo kuga hada maraga u go'ay ogeesiyaal badan ayaa ciida lagu gediyey gumeysti naceebaye hey geeri doorbideen axmed gurey iyo ragii geesiyada ahaa sayadgaiyo guutadiisi gacmahaadka ogeesiyadiis wahayelo hooqankadahalu dhicin gabdhihii dahabkooday hiibsheenayaa gurmaaday gabdhihii dahabkooday hiibsheenayaa gurmaaday ogobeeyeyna cuka haashyalka kuwii u gaalay gobeeyeyna cuka haashyalka kuwii u gaalay oo gabdhihii dahabkooday hiibsheenayaa gurmaaday geesiyow cabdullaahi ciisa dadaal u gaalay gayiga baariisa saha garayo gurmaaday ee Soomaaliyay gobanimadu waxaan la gadan karayn ee intii ka gadooday ha guushanoo hantiday ee geedkaynoo haray heeyenayahan la gooy ogumeysa labaadna ciideenu yahaysan gelin gacanta kuwaad keeyagay higeena qaaliga oo cadowga geesaha fadhahayow dalkeena gelin oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankan Ingiriiska mar walba u taagan sidii ay ummadda Soomaaliyeed u horumari lahaayeen ka mid ah ururka dhalinyarada Soomaaliyeed waa Mako Maxamuud Muuse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أم سنتهين لكن نصيب حما نقول هاي علن كان تاكتاجنو مال أفر متره لكن وين عليه مركز تو حتى ديرنا نجاح الله نيجاتيف فيو أنا نسيها لكن واحد قصة ديرنا ما ديرنا حتى هاي شغالنا وأنا نسوي هذيك سنة 91 كنا ولا هذيك سنة ما كنا هذيك سنة لكن هذا بعد ما يلنا هذيك سنة هذا بعد قرن كان كأوتاجن على كان أنا كاستكسنينه وأنا نقنينا ماشان نكون هرين لو يسبق كهر أيام كيم بعد مقدشوا
muqdisho inta aanin ka hor waxaa lagu dhaha meeshaas isku tegin bahaladaa isku cunaan waa lagu dilayaa waa lagu bursanayaa waa lagu bursanayaa muqdisho markaa tegay waxaasoo dhan ma yaala meeshii laisku dilo laisku kufsado xabsiyada laisku hareeyo waa halkan maaha soomaaliya marka dhalinyarada oo aaminsan inay soomaaliya tahay meesha laisku cunaayo laisku dilaayo meeshii maaha haddeer qof kasta wuxuu ku dhahay soomaaliya waa noqonaa laakiin nabadaa sugooyaa nabadii waa haysanaa ninka ganacsato ah waa inuu xamar ka dhisaa mise magaalada hargeysa ka dhisaa meeshiisa ninka soomaali ah oo lacag haysta waa inuu waddankiisa gashtaa ninka soomaali ah oo yaqaano dhulka si loo xaaqo waa inuu waddankiisa xaaqaa ninka soomaali oo yaqaano siyaasad si loo horumariyo waa inuu waddankiisa siyaasadda ka horumariyaa ninka soomaali oo yaqaano musqulaha xitaa si loo dhiso waa inuu baxaa oo dalkiisa musqul ka dhisaa ma ahane meesha inta ku artiin 95 baa shaqaynaa lacagta ururina ma shaqaynayso marka waxaa dhahayna dhalinyarada soomaaliyeed anaka maa xumaatida waxa wado haddar ka bacdina dhalinyaro dambe intaan lagu adeegsado ma yeelino thank you very much السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل قروح بدن رك قروح بدن كله أوجده لكن متبار ما ناديش يا إخواننا أنا وحكي صدا أورلي رادو قولها من لماذا الصوماليات قولها من لماذا الصومالي وحول تاجي هاي دلك الصوماليات دتك الصومالي يدينت الصوماليات يدينت الإسلام إنه إلهي مركو ولا ريال أرين إسصوت رئيس أو نبتجلي الصومالي وحتى على لا ولا لها قدالك هلا إلى دقائق هي رسالة 2-3 minutes لا تاجنا دوت كتير دونا مقعد الصوماليا صدق يكون تصنع كورة يصاب حي مدوم مكي جماستي وهيستي لكن صدق يزيد سنة هذا الصورة في الصوماليا وحي كجرتي مجدي دجال كلا قيب سنان قلنا من نمط الصومال هرت وحلوس من سعيد الشقي سدتك الصومال ذو مديو دلك الصومالية ذو إلى لي شرفتي دتك الصومالية شرفتي سسوي إلى لي عاو هلك وحيد ربع ولا لي لنا ذي كشيبو أرين صو بحذي هذا وحلا سعتان حسن دار المقالة المقصجو وحلا سعتان ولا لي دتك الصومالية مانتا إني أباهين إني أقتين شيء كلية الصومالية مانتا كم بقنينو يعني نبت هدان نبت عن لهلنا نرش الصومالية دي سوليت سوري قال قليني waxaan idiin sheegaynaa walaalayaal in ururka midnimada Soomaaliyeed qayb ka mid ah ay tagtay waddankaasi Qatar oo ay la soo hadashay dawladda Qatar kalena soo hadashay inay doonayso in nabadgelyada Soomaaliya ay ka qayb qaato dawladda Qatarna way naga aqbashay waxaa isla markiiba lala hadlay oo si toos ah loola hadlay Xasan Daahir oo loo sheegay inuu nabadda Soomaaliya ka qayb qaato asagana wuu aqbalay ulajeedada marka xasan uu maanta halkaan u yimi waxa weeye bal in uu ka qayb qaato sidii dadka Soomaaliyeed dilkan dhacan baabaan iyo ciidamada shisheeye ee dalka Soomaaliya maanta jooga sidii uga bixi lahaayeen waxaan ka codsanaynaa dawladda Muqdisho ama dawladda Soomaaliya in ay mar walbaba ka shaqeyso midnimada walaalnimada dadka Soomaaliyeed waan arrin muhiima in dadkiina dalkan jooga Ingiriiska ama meel kasta ha jooga maanta qof kasta oo Soomaali inuu ka qayb qaato waayo sharafta Soomaaliya oo dhan waxay ku imaan kartaa nod Xasan Sheekh Axmed inuu keligii soo saari karo waxa soo saari kara dhammaanteen inaan meel wada istaagno oo hal cod yeelano annagoo aan fiirinaynin gobolka aan ka nimid qabiilka aynu nahay mid annagoo eegayna eegayna waxa la yiraahdo Soomaalinimo walaalayaal saad la socotaan dalka Soomaaliya maanta waxaa jooga 18 kun ciidamo shisheeye ha u malaynaa ciidamada dalka Soomaaliya maanta jooga inay nabadgelyo keenayaan haddaan dadka Soomaaliyeed aan u istaagin ali ogsin doona walaalo please give me time waxaan rabnaa nabadgelyadina kulliga ka wada qayb qaadano South Africa dadkii Soomaaliyeed baa lagu leeyahay Kenya dadkii Soomaaliya lagu leeyahay gudaha Soomaaliya dadkii Soomaaliyeed baa lagu leeyahay America cunug yar baa maalin dhow lagu dag in la socotaan oo shin jir ah haddaad galaysa waxaad gashaan dayni la galcaaw ka fiiri cunug yar oo Soomaaliyeed inay gabarta inay wiil tahay ma qaar caruurta Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta maanta lagu bahdilaya walaalahay haddaad doonaysaan inaynu nabadgelyo helno Xasan Sheekh kaligiisna ma samayn karo African Union ma samayn karno waa inagoo isku duuban oo dhammaanteen leenahay dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed baa iskale
dadka Soomaaliyeed waa inay qabsadaan dhibaatadiisa dadka Soomaaliyeed waa inay noqdaan dad walaala haddaynan taas samayn walaalayaal ka bixi mayno dhibta waxaan ku soo gabagabaynayaa oo aan hadalkay ku soo xirayaa in nabadgelyada Soomaaliya aynu dhamaanta ka shaqeyno arrintan aanu leenahay nabadgelyada aan ka wada shaqeyno ee xasan uu ka soo tagay oo maanta Muqdisho joogo oo uu doonayo inuu tago wadankaasi qadan waxaan leenahay dhamaanteen waa inaan taageerno oo nabadgelyada aynu isu keenno oo xasan Sheikh Ahmed aan la hadalno xasan daahir la hadalno nabadgelyada ka shaqeyno walaalnimada isu keen haddaynan taas samaynin walaalayaal waxaa dhacaysa Soomaaliya dulmiga ay maanta ku jirta mid kale fiir wadanka Kenya Soomaaliya uu dhisaya yaa dhisa Soomaali baa dhisaysa Ethiopia maanta Soomaali baa dhisaysa caawa 350 sano baa ka soo wareegtay muddadii aynu xorriyadda qaadanay walaalayaal magaalada Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya maanta wali mugdi bay ku jirtaa arrinta ka taagan Kismaayo anuu ma dhahay waa qabyaalad waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed ee ku diriraaya waa ka daalin dagaal waa ka daalin qabyaalad uma baahnin dagaal dambe waanu aadaynaynaa ciidamada Kenya ee dalka Soomaaliya maanta ku sugan ee baaba iyo dulmiga iyo silaca ku haya dadka Soomaaliyeed ee jooga magaalada Kismaayo waanu diidanahay kala qaybsanaanta waanu diidanahay qabyaaladda ninkii qabyaalad ku dhinto la soco Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wala tamuutunna illa wa antum muslimun ninkii maanta u dhinto adoo hawiyaha dhimato la soco aakhire ila cadaabku kulna ninkii maanta daaroodnimo ku dhimanayo ogow Allah subxaanahu wa ta'ala inuu cadaabku gelna marka waxaan dadka Soomaaliyeed uga digaynaa ha ku dhimanina qabyaalad ku dhinta sharafta Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ha israado golaa midnimada Soomaaliya ha noolaato assalaamu calaykum xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii Soomaaliya Maxamed Cali Bilaal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين با عيد وناكسن سند وناكسن عاوة كودي لوليو حنو مالينا ياين ضد بدن عاوة هالكنا كهدلين ما انتا قيمه هذا والا الشاقي وما انتي يسو تغين لبدي قبل Soomaaliyeed gobolada Somaliland iyo gobolada koonfureed oo waqooyi iyo koonfurta ay noqdeen Somali Republic waxaan u malaynayaa caawa inaynu dabaaldegayno sanad guuradeedii 350aad waa 350 sanadood waxaan malaynayaa askariyo baa ogaa waagaa dadka hadda jooga damaga ogaaba waxay isu tegay wax kale tegay toona Soomaalida ha noolaato idina noolaada waxaan rajaynayaa in barwaaqo lagu noolaado colaadu iska soo dhamaato dadku ay wada noqdaan mid wixii dhibaatana Ilaahay inta inagu dhaafiyo wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh Maxamed Cali Bilaal aad ayuu maasaya dabcan waxa inala jooga wariyaal badan oo Soomaaliyeed oo qaybta gadaal oo dhan fadhiya wariyaashan dabcan caawa waxaan halka u dabaaldegaynaa waa 58 sano 53 sano sanad guurada ah 8 Ilaahay hana gaarsiiyo taariikhdaas saas loogu dabaaldegaa ragaa soo sameey laakiin aniga hadda ima muuqatay tii daba rag samay doon gabdhuhuna wax badan ay cawdeena bal aan garab siino xogaa aan dhulka iska qaadno maanta waa maalin taariikhiya waa maalin xusid mudan waa maalintii calankaas la taagay calanka waxa loo dabaaldegayaa dalka iyo dadka iyo calanka waa marka calanku asigu ma dhinta laakiin wax sharfo oo markasta u dabaaldego rabaa dad badanna waa u dhinteen waxaan idin xusiisinayaa marka raalli ahaada dhalinyarada yaa waxaa jiray nin calankan hees ka mariyey oo la dhihi jiray
cabdi kaamil cawaale cabdi kaamil cawaale laba biladood uu qaatay mid geesinimo iyo mid bilad sharaf ah waxaan idin xusiisanayaa inuu calanku wax cajaa'iba yahay markuu dhahaya intaan dadan dhalan ayaa caawa joogo nadir baan horey u gal niyadaydu waa meel haddii aana soo noqon calankayga nuurow allahayow ku nabadgeli
عشان ايه؟ وتانجو